maxaan u guuleysan waayay maxaa qayrka iga reebay maxaan ximiladayda uga dhabeyn waayay maxaan riyooyinkayga uga dhabeyn waayay maxay hortaagan carqaladay haysato maxay tahay maxaa iga maqan aqoon ee aanan garanayn halkaan ka bilaaba cudurdaar nooc kasta qofku uu ishordhiga markay noqoto inuu hore u socdo si hadhowto naftiisa uu qanciyo guuldarridiisa maxaa u sababahayd mawduuca maanta waxa weeyaan maxaa ka mid ah waxyaabaha kaa hortaagan inaad himiladaada ka dhabayso wadriyadaada rumayso. Welcome to Asis TV show. So dhawaada dhammaan topiceenu maanta masha Allah waxa weeyaan topic aad u qurux badan oo u fiican faa'iido badan insha Allah ka heli doontaan. dhalinyaro badan ayaa isoo weydiisay su'aalaha riyaan qaba maskaxdeeda waxaasa ku jira meelan ka bilaabo garan maayo mar alaale markaan siraado u dhaqaaq ayaan dib u fadhiisanaya meel la iga haysto garan maayo soo duuduba adigu waxa weeyaan waxa laala wixii niyadaada ku jira jecesha inaad gaadho mustaqbalkaaga door weyn ka ciyaaraya. Okay, dadka qaar way yaqaaniin halkay ka bilaabayaan dadka qaar way garanayaan waxyaabaha looga baahan yahay inay riyadooda ka dhabeeyaan wad fahamteen waayahay dadka qaar baanay garanayn waxaas oo dhan guys dad fara badan oo guul gaadha waxay ku gaadhaan guul waxaa la yidhaahdo dee nasiib oo kale yacni ilaahay baa u qoray maaragtay nasiibna waa la iska yidhahda laakiin dee qof fudayd buu ku helo guushiisa haddaba dadka badankoodu boqolkii qofba 98 kama dhabeeyaan riyadooda boqolkii qofba 2 keliya ayaa laga yaabaa adduunyada inay ka dhabeeyaan riyadooda waa boqolkii qofba 2. Okay, intii kale hadaba xagee laga haysta dhibaatada haysata maxay tahay waayahay I hope horta dhalinyaradu in insha Allah aad u dhageysanayso mawduucan sababo fara badan ayaa keeni kartaa waad garateen qofku horta inuu lahaado riyo iyo himilo iyo hadafyo nolosha aad jeceshahay inaad samayso inta aanad adduunyada ka bixin aanad dhimanin cid kasta taa way lahaan karto waa loo sameeyay dhalinyaro un maaha adigoo 30 jir 40 jir 50 jir 60 jir 70 jir riyadu kaama albaabkeedii lagama xidhin waad fahamtay waxaa jira dad 70 jir ku gala jaamacad oo xilligaas soo daba qabto iyo ko dhowriyo 70 jir jaamacadii ka soo qalin jabiya marka horta number 1 marnaba da kasto aad tahay duruufo kasto aad ku nooshahay wax kasto asleeday way ku hortaagan yihiin rajadu meesha yani ka bixin waad fahamtay waayahay taariikhda waxay inoogu xigaysaa insha Allah maxaa ka mid noqon karaya caqabadaha dadka ka hor yimaada nolosha ee dib u dhiga. Okay, dad waxa weeyaan waana laga yaaba caqabadaha la sheegi doono qaar badan in aad tirahdaan anna taas ay haysata anna tan so dad waxa jira ka baqaba isbedelka iman doona markay guusha gaadhaan macnaheedu maxay tahay dad baa waxay ka baqa they are afraid of being successful or becoming successful waad fahamtay success marka la leeyahay ama guul loogama jeedo un xagga dhaqaalaha iyo lacagta waad fahamteen waxa looga jeeda xagga dhaqaalaha xagga tacliinta dad rabto inaad iska dhisto xagga Allahu musta'an hamiyo iyo himilad ubadkaaga la leedahay aad rabtid inaad la gaadho waxyaabo adiga ku gaara haba ugu yaraato ha noqoto miisaan cayiman oo aad rabtid inaad gaadhid oo caafimaadkaaga iyo quruxdaada faa'iido u soo jiidaya. Okay, wuxuu doonuu noqon kara himiladu riyooyinku waxay doonaan bay noqon karaan isku wado ayaa loo mara guys waad fahamteen cabsidaasi door weyn bay ka ciyaarta dadku inay habsaamaan ama ha ka baqaan guusha ama ha ka baqaan jaranjarada laga baxayo ilaa waxaan ku dhahay halkan ilaa halka u boodi maysid ama ha ka baqaan jaranjarada laga baxayo ee dheer ee tacabka la rabo maalin kasta inay meeshii keenaan ama waxyaabo kale ba cabsi ha ku abuuraan taa cabsidu waa jirtaa
mid kale oo keeni kartaa guuldarrada waxa weeyaan duruufihii oo aan dadkii u habaysnayn ama dadkii oo iska dhaadhicinaya waa inaad waxaa haysato marka hore si aad waxan u fuliso. tusaale waa inaad lacagta intaa la eg haysato si aad businesska niyadaada ku jiro u bilowdo. waad fahamtay? dad baa taa isku xidha. businessyada waa la bilaabi kara bilaa lacag. $100 baa laga soo bilaabi karaya businessyada oo aad soo amaahatay. waad fahamtay? 100 kirogo waxaad ka dhigtay $120, 20 ka halkaa dhig, haddana 100 kirog 20 kale si aad uga dhex saarsaaraysid faa'iidada aad u rogrogaysid meesha doontaad gaarsiin kartaa. waad fahamtay? iminka waxaa jira businessyo fara badan oo online lagu qabsado. $100 baa kaaga filan oo raasmaal ah. markaa taasi caqabad iminka maba noqoto. okay? raasmaal iyo business iskuma xidhnaa. ka gudub. waxaa laga yaabaa qofka inay ka hor joogto himiladiisa inuu gaadho jaahilnimo ka haysa xagga wadada loo marayo, qorshaha loo baahan yahay inuu qofkii dhisto si uu u gaadho himiladii. waayo himilada gaas layskama gaadho. himiladu waxay rabaan shaqo joogto oo daily ah, inaad khariidad iyo maab samaysato aad u marto aad ku gaadho, oo daily every single day aad keenaysid tallaabooyinka meeshii. waad garateen? waayahay. dad kale waxaa ka hor joogi karaya laziness. waa lazy. dad badan baa lazy oo haddaad la shaqayso ood qorshihii la dhisto ood wax kasta la habayso inay kacaan oo hawshii qabtaan aanad ka helayn. haddaad ka heshona la dhacdhacayo, maantana in yar qabanaya, 4 cishona ka dhacaya, maalinta dambena in qabanaya, 2 toddobaad ka dhacaya, markaa meel ma gaadhiyaan guys. waad garateen? guushu waxay u baahan tahay insha allah video kalaan idinkala hadli si loo dhiso goalskaaga wadadaad u mari lahayd. okay? goalskaagu waa kaa waxaad rabto. tusaale inaad sanad ku gaadho, sanadka maxaa lagaaga baahan yahay inaad bil kasta samayso, bishii waxaad usii kala qaybqaybinaysaa, toddobaad kasta maxaa laiga baahan yahay inaan sameeyo, toddobaadkii 7 maalmood baad u qaybinaysaa, daily maxaa layga raba tallaabo noocoya inaan qaado. tallaabooyinkaa yaryar aad soo qaadqaaday sida dailyga consistency aad u samaynaysid ayaa hadafyada dadka gaadhsiiya. waad fahamteen? iyo ishaad ku haysid hadafkaagii oo aanad maalinna ilaabin oo ka dhicdhicin ama lagaa mashquulin. waad garatay? dadka isoo weydiiy su-aalaha inan baa ka mid a. inantaas waxay tiri already waan garanaya waxaan jeclahay inaan qabto. waayahay. wadadii loo mareeyeyna waan garanaya, haddana tallaabo qaadi maayo. intaan kaco 2 tallaabo qaadi maayo oo wixii ku dhaqaaqi maayo. okay? marka inaan taa haddii maqlayso ama dad badan oo kaloo lamida sababaha ka midun baa kaa hor joogtaa. waxaa ka hor joogi kara qofka himiladiisa kalsooni darro, caajis, laziness, kalsooni darro. qofkiiyo waxaan ku ori dadku isku mid maaha. dad uma baahna maalin kasta in la motivate gareeyo, dabada laga riixo, la dhiirigeliyo uma baahna. waad garateen? dad waxa iska toosan iyo ka waxaan ku ori xagaan maanta okay hawsheedii halkaan ka bilaabo taagan. okay? dadna waxaan ku haddaad jiidaysid ma dhaqaaqayaan. hadafkooda way garanayaan, niyaddii way ku hayaan, maskaxdii way ku hayaan, wadadii loo marayay waad la qorshaysay, wax kasta waad la qabatay, laakiin hawshii iyakaa looga baahan yahay inay qabtaan. hawshii ma qabanayaan dadkii. cudurdaar bay iska raadsanayaan. wax halkan ay ka baxday maanta tana igu soo korodhayoo waa kaasaa lagu haynaya. okay? marka waqtigiina uu soconayo, qofkiina saacadii way ka dhacaysa, meelna gaadhi maayo. waad fahamteen? dad waxaa ka hor taagnaan kara himiladooda inay gaadhaan, inay iska dhaadhiciyaan hadafkaa ma gaari kartid adiga oo aan jaamacad ka soo bixin ama shahaadad jaamacad sidanin. kala saara 2 arrimood. okay? mid waxa weeyaan shahaado jaamacad iyo degree. midna waxa weeyaan aqoontii la rabay inaad u lahaato hawsha aad rabtid inaad gaadho. okay? degree la-aan iyo jaamacadan laga soo bixin milyaneerinta adduunka oo dhan baa u badan inaanay digriiba haysanin. dadka adduunyada ugu taajirsani dee jaamacadaba kamay soo bixin. waad fahamteen? waayahay. jaamacaddu way fiican tahay, waa muhiim haddaad helayso waxa weeyaan waa faa'iido dheeraad oo jeebka kuugu jirtaa.
laakiin aqoonta la raadiyaa waxaad rabta inaad business samayso businesska macluumaadkiisii soo ururso waad fahamtay waxaa niyadaada ku jira hadafka aqoontii ku saabsanayd ayaa la raadsadaa koorasyo fara badan baad u qaadan kartaa gaagaaban oo kooban okay koorasyadaba aadan qaadan oo lacagiba kaaga bixin macluumaadka waxaad ka raadin kartaa Google YouTube internetkii ka buuxan maanta wax kasta waad fahamtay buugag baad akhriyi kartaa ka hadlaya mowduuca aad rabtid inaad fuliso marka tacliintuna ma hor istaagto dadka walaalayaal haba yaraatee kaa hor istaagi mayso himiladaadi insha Allah inaad gaadho waad garatay adigu markaa way badan yihiin sababuhu waxay doonaanba ha noqdaan sababo fara badan oo kale ayaa jira oo qofka ka hor istaagi karaya inuu hore u socdo maxay ahayd qofkii aan bilaabinba yani hawshiba maad bilaabine qofkii yani kicidii talaabadii u horeysayba aan rabin inuu qaado oo sheekadu aanay soo dhaafinba maskaxda iyo niyadda saad u ogaatid arrin inaad ku fashilantay ama ku guuleysatay waa inaad horta talaabada u horeysa qaado ma fahamtay talaabada u horeysa qaad okay afka u dhac ka haddana istaag haddana dhac inta jeer aad doonto dhac waad garatay laakiin waxaa laga markas inaad boorka iska tunto kacdo sii socoto oo aanad marnaba isdhiibin okay marka dad baa isdhiiba iyagoo aan talaabadii u horeysaba qaadin halkanay ku dhalanaysa fikradu niyadiina waa iska dhiibayaan waa u dhammaatay bes okay dad markay hawsha bilaabaan dhibaatooyinka ka hor yimaada ay la kulmaan wadada ku niyad jaba oo halkaa ku hadha maaragtay oo aan lahayn muxuu ahaa dabeecadii baanay lahayn caqabadaha ka gudubkeedii maaragtay mushkilad laba bes way kala daadanayaan ma haystaan tamar adag iyo maskax maaragtay hadafkeeda ku adag qorshe xumo taladoo ka xumaata dadka maxay cudurdaarka ay naftooda u badiyaan dadka ay la tashanayaan oo talo xun siiya dadka ku xeeran oo aan dhiiri gelinayn ama niyad jabinaya oo ku odhanaya qofkii ma awoodide ma adiga oo caynka waxaan ku oo qofkii maaragtay la niyad jabinayo ma tiro ma laha guys waxyaabaha sababa guuldarrada inaan la gaadhin hadaf markaad niyadda ku hayso waad fahamteen markaa guys waxaan ku odhi intaas waxa weeye yaro tusaale maanta waxaynu ka hadlaynayuun maxaa ka mid noqon karaya because sababuhu waa badan yihiin maxaa ka mid noqon karaya qofku inaanu u kicinba hamigiisii iyo himiladiisii oo aanu ka dhabaynin alright waynu ka hadli doonaan insha Allah xalqado soo socda dadka ka dhabeeya hamiyadooda sifado nooceeyay leeyihiin waa sifadaha kuwan maanta ka hadlayno ka maqan boqolkiiba labada guusha gaara sifado nooceeya ayay leeyihiin hab nooceeyay ku dhaqmaan nolol nooceeyay samaystaan sidee u qorsheeyaan hadafyadooda insha Allah waxaas oo dhan insha Allah waynu ka hadlaynaa laakiin guys waxay tahayba insha Allah hamigiina ha ka hadhina taladu haddaydan ka xun tahay tala xuni hadday agtiina ka dhow yihiin waxaa lala xidhiidha dadka insha Allah talo fiican idin siinaya haddii ilaahay ka dhigo anigu waa la shaqeeya guys dad badan baan la shaqeeya one inkastoo taasi marka ay aad igu adkaatay oo aan u sameeyo online sessions face to face yani online-ka uga sameeyo maaragtay life coaching sessions ama xitaa therapy sessions markaa guys cidii talo u baahan insha Allah fiican waa ila soo xiriiri kartaan waxaad igala soo xiriiri kartaan Facebook page-kayga luuqiisa oo qarxaya halkaasuu jooga laakiin insha Allah biidni illaahi tacaala waa u fadhiisanaya qaar badan waa kasoo jawaabaya biidni illaahi tacaala weliba waxaan kasoo bilaabaya kuwii u dambeeyay cusbaa imika qolooyinkan ka raagay okay waa gaadhi laakiin cudurdaar baan siinaya ee kuwa freshka imika si videogan waxyaabo ku saabsan haddaad iisoo dirtaan si aan markiiba uga soo jawaabo okay description-kana waan idiin soo dhigay halkana waa idinku soo qoraya insha Allah Facebook aad ku baaraysaan Arzali Massage Center Hargeysa haddaad ku baadhaan way idiin soo baxay insha Allah kusoo biro like si sad xubin insha Allah uga noqotaan
باذن الله تعالى لوقي صديق la soo xiriiri karaysaan like tahay laabina comment-ka ku soo darsada guys waxalaale wixii aad jeceshiin inaad ka hadashaan ama ila wadaagtaan halka igala soo xiriira wixii kale aad comment-ka kula soo wadaagaysan walaaladiin welcome wixii fikra dheeraad aad haysataan ama mowduucyo mashaakil idinka haystaan wadii soo gudbin kartaan si aan insha Allah xalkeedii ama ka hadalkeedii si faahfaahsan video ahaan ugu soo gudbiyo si dadkoo dhan uga faa'iideystaan anigoo of course cidna magacooda soo hadal qaadin laakiin ay noqoto qiso dadku ka wada faa'iideysan karayaan insha Allah باذن الله تعالى aad baa idin salaamaya insha Allah intaasan idinku daynaya maanta ilaa iyo videoga dambe aynu ku kulmayno aad baad u mahadsantihiin waqtigiina maca salaama